السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وأنا ونكسنا خيارتك kala duwan ee ku xiran warbaahinta Lebdo ku soo dhawaada mar kale iyo wararkeena dunida iyo Soomaalida waa maalin Sabti 17 bisha labaad ee sanadka 2021 qodobada wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda Turkiga oo bilowday qorshayaal ka dhan ah dalka Soomaaliya iyo dadaalo ay ku taageerayso dalka Kenya oo ay ku dhawaaqday dawladda wadanka Turkiga Mareykanka oo shaaciyay cid bixisay amarkii lagu dilay wariyay Sacuudiga u dhashay Jamal Khashoggi oo si foolxun loogu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul dagaal qaraad oo maalmihii Khamiistii iyo Jimcihii dib uga dhex qarxay ciidamada Suudaan iyo ciidamada wadanka Itoobiya militariga Suudaan oo ku dhawaaqay qabsashada dhul ay dhawaan kala wareegeen militariga wadanka Itoobiya iyo sidoo kale waxa ku daawan doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo xayiraad cunaqabatayna ku soo rogay saddex qof oo Soomaali ah iyagu waxa ay shaqadooda tahay qodobadaasi idin ku daawan doontaan oo diyaar garoobay oo faahfaahsan وهاجاك داود قال إنه كبلون واربحين وشعي سردون كمريكان كايا وحلقوا وقاضي إن أمريكا دخل سوقها السعودية محمد بن سلمان وأنسحيي دلك وريها قرب جوجها جمال خشوقي أولى دل سنة كلا بدي يكون يستدي طبقي واربحين وشعي مامل كمدحوين بدن أيا وحا اتباحيس إن أمريكا وأنسحيي قرشها إن لسوقبت أمل دل وريها أوصل سوها وطن كمريكان كا وأمريكا ورئيسه ومريكان كوسعدو شيء مقع أمريكا دخل سوقها كاسي أوديدي إنه أمري أما بحي أمريكا دلك ورياسي خشوقي وحالة دل حلو بوقني قنصلية السعودية وكلها مقالة إسطنبول وطنك تركيا وحان أوغاني إن أمريكا دخل سوقها السعودية عربية محمد بن سلمان وانسحيي هورقالك إسطنبول تركيا سلو سوقبت أملو دلوريا رير السعودية جمال خشوقي واربحين تنقصوا بعض حفيز كاغاسي ماسيرتون كي قرن كمريكانكا أيا سيداسي لغو شاقاي واربحين تا أيا سيدو كلا وحلقو مقعاب شخصيات كلغو لها أما بمسؤول كأها دمشادي خشوقي خاصة يشي واربحين تو وحاي ليدهي مؤغين مدد أي قرشين تنكو قاتين دادكي كلغو لها إن ninkaasi waxyeelayana tan iyo sanadkii 2018 CIA Mareykanka ayaa la sheegay inay rumaysan tahay in Ameerika dhaxal sugaha uu amray tilka wariyaha siyaasad yeeshay eedaha ah inuu ku lug lahaa ayaanay shaacin saraakiisha Mareykanka ilaa hadda la soo gaaray madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa la filay inuu talaabo adag ka qaado saaxiibkiisii bariga dhexe ee wadanka Sacuudi Arabiya taasi oo ka soo horjeeda xiriirka xulafa ee wadanka Mareykanka ku leeyahay wadanka Sacuudi Arabiya taasi oo tan iyo qabsashadii madaxweynihii hore wadanka Mareykanka Donald Trump uu xiriirkooda ahaa mid aad u sareeya aan ku sii socono daawadayaal dawladda Turkiga ayaa bilaabaysa qorshe ka dhan dalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha taagan ee khilaafka badda ee u dhaxeeya dalalka jaarka ah ee aan xiriirkooda wanaagsan ee Soomaaliya Kenya oo dhageysiga dacwadda dhinaca bad uu ka mudaysan yahay maxkamadda dacwadaha caalamiga ee dunida ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ waxaana dawladda Turkiga wadaa dadaal ay doonayso in lagu hakiyo go'aanka maxkamadda 15 bisha fooday nagu soo haysay March isla markaana arrinta muranka badda loogu dhameyn lahaa wadaxaajood rasmi ah wasiirka arrimaha dibadda wadanka Turkiga ayaana la filayaa inuu boqosho ku iman doono horraanta bishan March magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi isagoo kulamo la qaadan doona madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale Uhuru Kenyatta Farmaajo iyo Uhuru waa madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa bay la soo dhaafeen wanaagsan xiriirkooda sidoo kalena waxay dawladda Soomaaliya si cad gabi ahaanba u jartay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay wadanka Kenya sida laga soo xigtay ilo xogaala madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu aad u danaynayaa in labada dal ay xal nabadeed ka gaaraan dacwadda badda oo ah isha ugu weyn ee khilaafaadkooda labada dal u dhaxeeya wuxuu dhexdhexaadintan uga faa'iideysanaya xiriirka wanaagsan ee uu leeyahay Soomaaliya halka sidoo kale uu dalka Kenya la leeyahay wadanka Turkiga xiriir qoto dheer oo dhinaca ganacsiga dadaalada uu Turkiga ku doonayo dhexdhexaadinta cusub ee labada dal ayaa imanaya xilli dhawaan maxkamadda ICJ ay ku gacan saartay codsi ay dawladda Kenya markii afraad ku dalbatay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda waxaanay ballantu tahay 15 bisha waxaanay ballantu tahay in 15 bisha soo socota ee March loo fadhiisto dhageysiga ka dambaysta ee kiiska badda Kenya iyo Soomaaliya waxaana labada dal ee isku haystay biyaha badda lagu kala saari doona sanadkan gudihiisa waxaanay maxkamaddu kiiskan ka gaari doontaa go'aan aan lahayn raacfaan qorshaha madaxweynaha wadanka Turkiga ee ah in xal nabadeed laga gaaro arrimaha khilaafka dhinaca badda ee u dhaxeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya ee haatan oo Turkigu doonayo in xal nabadeed lagu gaaro isla markaana la isku afkarto inay labada madaxweyne ka wada hadlaan ayaa wax uu caqabad ku noqonaya go'aanka ay Soomaaliya doonayso inay ka soo saarto maxkamaddu kiiska badda kaasi oo loo badinayo in kiiskan ay guusho
raaci doonto wadanka Soomaaliya oo la rumaysan yahay inay Kenya ka doonayso bad aanay lahayn. dhinaca kale golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa liiska dadka lagu soo rogay cunaqabataynta waxa uu ku daray 3 hogaamiye oo al-shabaab ka tirsan oo Soomaaliya hogaamiyaasha al-shabaab cunaqabataynta oo ku soo rogay gudiga cunaqabataynta ee golaha ammaanka ayaa kala ah Abubakar Cali Aadan Macalin Ayman iyo sidoo kale Mahad Karatay. Abubakar Cali Aadan ayaa ku xigeenka hogaamiyaha al-shabaab halka Macalin Ayman sida golaha ammaanka qaramada midoobay ay sheegeen uu yahay aasaasaha Jaysh Ayman oo ah guuta al-shabaab ka tirsan oo weerar ka fuliya gudaha wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Mahad Karatay oo sidoo kale loo yaqaano Cabdiraxmaan Axmed Warsame ayaa isna golaha ammaanku ku sheegay in la aaminsan yahay inuu xubin firfircoon ka yahay ururka al-shabaab. dalka Mareykanka ayaa waxa uu hore Mahad Karatay ninka lagu magacaabo madaxiisa u duldhigay $3 milyan oo dollarka Mareykanka ah. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale Ayman waxa ay ku eedeysay inuu mas'uul ka ahaa weerarkii bishii January sanadkii 2020 lagu qaaday xarada ciidanka Simbe ee ku taala gobolka Mandabay ee dalka Kenya halkaas oo lagu dilay askar Mareykan ah oo ku sugnaa. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo dhaweysay go'aanka ay golaha ammaanku cunaqabataynta ugu soo rogeen saddexdaasi horjoogay ee ka tirsan ururka al-shabaab. Talaabadan ayaa la sheegay inay timid kadib markii ay dowladda Soomaaliya arintani ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ugu dambeyn haddii aan eegno khilaafkii dhanka xuduudka u dhaxeeyay wadamada Suudaan iyo Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay waxa sii hordhaxaysa dhanka colaadda ee u dhaxaysa dowladaha Suudaan iyo Itoobiya oo wali madaxa iskula jira dhul beereedka u dhaxeeya labada dal ee gobolka loo yaqaan Al-Fashqa. wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya xiisada dhanka colaadda ayaa sheegaya in iska hor imaad xoogan mar kale ay dhaxmareen ciidamada militariga ee iska hor fadhiya xuduudka maalmihii Khamiistii iyo Jimcihii shalay sida ay soo taminayeen warbaahinta kala duwan ee dalka Suudaan gaar ahaan kuwa dowladda iyo kuwa madaxa banaan. iska hor imaadyada cusub ee labada ciidan dhexmaraya ayaa ka dambeeyay kadib weerar rogaal celis oo Isniintii iyo Salaasadii toddobaadkii aan soo dhaafnay ciidamada dalka Itoobiya ay gacanta ku dhigeen 3 deegaan oo ka mid ah dhulkii beeraleyda ahaa ee ciidamada Suudaan ay hore u la wareegeen kuwaasi oo ay ku hantiyeen weerarkii rogaal celiska ahaa ay qaadeen maalmihii Isniintii iyo Salaasadii kadib dagaal la isku gabadhacsaday oo deegaanadaasi ay ku qabsadeen ciidamada Itoobiyaanku. xogii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dagaalo culus oo ka dhacay shalay oo Jimco ahayd iyo Khamiistii deegaanka xuduudda Itoobiya gaar ahaan dhulka Axmarada ee loo yaqaan Matama iyo deegaano ku dhow isla markaana ciidamada militariga Suudaan ay ciidamada Itoobiya dib uga qabsadeen 3 deegaan ee hore looga riixay bartamay toddobaadkii aan soo dhaafnay. waxaana haatan ciidamada Suudaan ku soo dhawaadeen gudaha Itoobiya gaar ahaan meelaha rasmiga ee xuduudka la isla ogol yahay ee labada dal isla markaana ay taalo birta controlka ee kala qaybisa. warbaahinta kala duwan ee gudaha wadanka Suudaan ayaa waxa intaasi ku darayeen in dagaaladaas ay ciidamada dalkooda guulo waaweyn ka gaareen isku dhaca ciidamada isla markaana haatan ay gacanta ugu jiraan intii ugu badnayd ee dhulka lagu muransan yahay. dhawaan markii ugu horeysay ciidamada dowladda Itoobiya ayaa dhigooda Suudaan kaga adkaaday dagaal toos ah oo ay wada galeen waxaana dagaalkaasi laga adkaaday ciidamada Suudaan kadib ay dowladda wadanka Suudaan ku dhawaaqday in ciidamada Itoobiya ay dagaalka ku helinayeen ciidamada dalka la jaarka Eritrea oo xilligan ay saaxiibo dhow yihiin wadankaasi. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kana mid ah ciidamada ka howlgala gobolka Tigray ee colaadu ragaadiyeen iyadoo dowladda Eritrea ay saacado kooban ku beenisay warka ay sheegtay Suudaan ee ah in ciidamada Eritrea ay qayb ka yihiin dagaalka xuduudda isla markaana uu madaxweynaha wadanka Eritrea Aziz Afwerki uu wafdi balaaran u diray caasimada Khartoum si uu meesha uga saaro eedeymaha loo jeediyay ciidanka wadankiisa. xiisada muranka labada dal ee Suudaan iyo Itoobiya ayaa u muuqata mid aan wali xal rasmi ah loo helin iyadoo labada dowladood u midba midka kale ku eedanay inay dagaalka iyo colaadaasi horeynayaan isla markaana ay weerarada militariga yihiin qaar joogto ah oo ay ka dhashan khasaare kala duwan iyo barakac xooggan oo soo gaaray dadkii rayidka ahaa ee dhulkaasi ku sugnaa. waa tahay daawadayaal wararkeena dambe aad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee maanta Sabtida ka soo baxa xuduudka labada dal ee Suudaan iyo Itoobiya iyo sidoo kale xaaladda gobolka Tigray oo walaac xooggan laga muujinayo. warka xigeentan kulmi doono waa aniga idin leh nabadgelyo.